war afar xaas guursada naag hadda tiraahdo janna galay ninkaaga u ogoloon naag inuu guursado waxay ku leedahay naarta galay ninkayga iska bula ku dhamayso sideeda igula joogay ku leedahay naag waa dhawaay saaxiib waa magacaygu waa Mukhtaar Maxamed Jaamac afar xaas le waaba adaa maqashay aarka ragga ama libaaxa ragga hadaa maqasho waa nin afar xaas le saddex xaas le laba xaas le hadda tusaalaan hal xaas markaa qabtid waxa laga yaabaa habeenkii markaa guriga soo yeetid joodariga aad tagtid naagta say u soo socotay inay ku soo agsay xataa war seeca maladiga ina wax ka rabtidba muu maleeso markaa hal xaas qabtid laakiin laba xaasle markaa taa ama afar xaasle markaa tahay naagta markaa guriga waa galabta ku qoranta habeenka ku qoranta way si libisanay cashadaada markay ku diyaarayso ayada qabeesay ku maqantaa or aniga horta naagaha waa dabeecadooda naag hadda tiraahdo janna galay ninkaaga u ogoloon naag inuu guursado waxay ku leedahay naarta galay ninkayga iska bula ku dhamayso sideeda igula joogay ku leedahay naag maya rag aan anaga qalad ugu yahay sababtoo ah hadda hal naag qabto ayada kaliya fiirin naagtaada subax abaadabaysay duurka abaadabaysay galabka abaadabaysay casirka abaadabaysay habeenka abaadabaysay ayada ma daba soconaa adooma waay lama rabo laba xaas iyo afar xaas hadaa leedahay anoo ku sheegay baan hal naag markaa qabtid markaa sariirta soo saxad inaa rabtid ma maleesay u soo socdo ku soo agseexanay laakiin laba xaas markaa leedahay naagtu waa isinaanaasha waa isdiyaarinay war afar xaas guursada welibana afartana laakiin xaqa ku dadaala waxaa la yidhi ilaahay markii aakhire la tagaaya la yidhi ragga xaaslayaasha ayagoo dhinac u janjeera ee tagayaan allah adoo xaas kala khudba sareysan waa qalad labada xaas hadaada naagtaadan kale aad soo bandhigi karin raganimadaasna aadan lahayn adeero tartiibso maalin raganimadaas leedahay soo bixi mideeda kale la jaamidan kala hadlaa nina naag $1 ku biilay rafaadka ugu jirtaa qoraxda taagan tahay $2 oo soo shaqeynay naftaada ayada u baahan tahay ayada u tuuray maalinka ilaahay wax ku sii haday ku tara ka waran naag ma guursan kartid war aniga rafaadka ku soo maray moogid miyaa si aad u noolaatid naagta fiir dhabankeeda cadda ay xaada leh nina maalin walba qoraxda u taagan ninkaas qoraxda maalin walba u taagan $5 ku shaqeeya maalinka ilaahay malaayiin $1 soo galiye wax ma dhaleys meeleeda naaga kale muutii kartid naagta markay ninka naagu diido ayadana nin naag qablay guursataa meel kale ma aadaba ma foofeysaba nin naag qabo ay guursay sharciga ka yaalo wuxuu ku leedahay markaana nin dhaqanayaa rabaano marmarsiyo haddii ay 20 iyo 30 sii dhaafto waxay leedahay wallaahi bil odalee anfacayo no shan nin ha qabo hadduu rabo wuxuu rabaa wax iga ma gelin camal marka naagaha anaga waxaan leenahay annagana inaa adoono noo noqotiin ma rabno idinkana inaa adooman ii noqono ma rabno taasna waxaan ku heli karnaa adi haddaan kaa maarmo addoon kuu noqonay adina haddaa iga maarantid addoon ii noqon maysid marka waxaan leeyahay ayadoo la isqabo ixtiraam ah naga dhexeeyo nimankana naaga kale waa guursan karaan ilaaha u baneey taas ilaaha u baneey laakiin maalinkii jeebkeena kista soo gash nin faqiir leh u bootaya naaga nin taajir ma ka soo dabaal laa ilaaha illa anta rasuulullah naag walba halkeeda milyan oo bishi loo soo gelinaya ka cabsi inuu dhaafo horta ragga saddex nooc waay nin waxaa jira maanta $100 haddaa siisid soo u sii socda bakaaro tagaa waa labisana xildhibaan iska dhiga soo u qurux badan yahay heebada iyo sharafta ka muuqato waxa leedahay ninka malaayiin $1 oo haystaa shiishii dhalo waay markuu naagta jacayl ku beero oo leeyahay abaakaarkii geli lacagta mootada iyo soo tuur ama markay isguursadaan oo leeyahay lacagta biilka naga bixin aan had maayo wallahi ninkaasna wuxuu ku tashtaa biil wuxuu mishaaraan u qaato ninka labaad waxa waaye $100 maanta soo galay soo u sii socda African daafi oo ka dhaca meesha ugu dhanka fiican raashinka Soomaaliya waa African daafi waay $100 baad oo African daafi ku soo dhaceeba African daafi oo dhaca lacagtiisa si ciyaalkiisii naagtiisii African daafi badarka ku soo wada cunayaan kun meel uma yaalo mishaarkiisu ku tashtaa asagana waxa la yiri nin kale saddexaad jiro bishii waxa soo gasho $100 $90 meel dhiga Allah ninkaas $10 wuxuu isku daa inuu nolosha ku maareeyo dhar ma gadanayo badar ma cunaayo waa rafaasan yahay lacagtaas oo meel dhigan waxa laga yaabaa inuu ka dhinto ragga saddexdaas nooc waay aan ahaana waxa ila wanaagsan ninka saddexaad oo $90 meel dhiganayo naagta loo dhiibaa $90 naagtaas naag wax kala maareen kara hadee tahay oo kala maareen karta ninkaas ayada quruxsanayso $20 ugu soo bixinay waa ugu labisay ninka qurux badnaada keedna waa leeyahay labada hore waa ka fiican yahay naaguna waa saddex nooc naag waxaa jirta la yiraahdaa nin kursi ilmo kursi ayadana rafaadka ka maqmiig iyo wax la gashay nin ilmo le urontaaba bas wax nafteeda uma waroonaba ma labisayso ma qurux badno ayada waa ilmaheeda hadda aragto quruxda ninkeeda naagtaasna waxa la yiri wixii loo dhiibo ayada ku filan lagalama daba hadlo laguma maamulaba naagtaas oo kale waa dahab lama helo adaa quruxsanaysid diraca ka bedelane dharka ka bedelane waa qurxine waxay u baahan tahay kareema u gagadane waa ku qurux badnaane naagta saddexaad naagta labaad miya naagta labaad waxa la yiraahdaa dad kuris iyo tol kuris gurigeeda hadii la yimaado dadka imaada wax ka kala qaadanayaba ninna wuxuu haray ma ilmana wuxuu haray maayaan dadkana wax siisiinay oo ku daldaleeba
tan saddexaadna waxaa waaye naag nafteed kurisaa la yidhaahdaaba maanta $100 haddee soo gasho ilmaheeda hadday qadaayaan xataa ayadaas carfay oo qurux badan ayadaa istootoos $100 way ka qadaayaanba ya meesha kusbaata kiska ugu fiicana la yidhi waxaa waaye dumarka ka adeegtaan qurux dumar waaye qurux dumar ay orod ku tegayaa le naagtaan ya ragga farxaad guursada dumarkana waxaan leeyahay sabra aad taajir noqotaane